بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها كوميل غاركا يا قلق السره مدن محمد علي يوسف قدوميه هره مدن عبد حاشي عبد الله قديده doorashada inoo qabanaysa senatarada sharfan guud ahaan ee maanta halkan aynu codkooda marti uga nahay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu ku jirnaa bil barakaysan ilaahay hayna waafajiyo barakada oo xaaladaha Soomaalidu ay ku sugan tahay rabbi haynoo fududay walaalayaal inta aanan qodbadayda gudagelin iyo doorka aqalkani uu leeyahay waxaan rabaa bal inaynu isla meel dhigno dalka maanta aynu ugu jirno doorasho oo aynu u holanay inaynu doorasho u galno manaasibtiisa ugu sarreysa xaalad uu ku sugan yahay inaynu isla meel dhigno waxaynu wada ogsoonahay in dalkani uu muddo hadda 2 sano ku dhow ku jiray jawi doorasho jawiga doorasho oo ay ka dhalatay xaalado siyaasadeed oo aloosmay oo halisba geliyay geedi socodkii qarandhiska Soomaaliyeed walaalayaal waxaynu ogsoonahay in cilaaqaadkii maamul goboleedyada iyo dawladda ka dhaxeeyay uu in muddo ah ragaadsanaa waxaynu kala ogsoonahay in abaar ba'an oo saameysay dad iyo duniyaba ay tobaneeyadii sano u dambeysay in ka badanba dhowrkii sanaba mar ku dhufato dadkeena abaartu waa arrin rabbi keeno laakiin waxa weheliya xoogay qarankeena oo aan aad u adkaan dadkeena si gaar ah u saameysa walaalayaal waxaynu ogsoonahay dhanka amniga kumanaan kun oo kamid ah ummadda Soomaaliyeed ee aynu halkan ku metelno ku dhaaranay ayaa maanta ku hoos nool deegaano ay maamulaan nabadiidku oo da'yartii halka ku dhalatay ay maanta qaangaar ku dhowdahay ayna ku ildarantay walaalayaal waxaynu ogsoonahay labadii dhidib ee dalkani uu ka koobnaa mid kamid ah oo ah waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland wada xaajoodkeedii iyo wada hadalkeedii inaan wali la dhameystirin oo qaranku uu kala dhambalan yahay waxaynu ogsoonahay ka dheregsanahay haatadan aynu hadlayno waxa aad u suurtagala in boqolaal da'yartii Soomaaliyeed ay doonyo saaran yihiin ama ay saxaraha Liibiya iyo Afrikada waqooyi u hayaamayaan oo ay u socdaan dalal iyo meelo malaha ay bidayaan inay nabad ka jirto walaalayaal marka la eego daryeelka bulshada iyo adeegga loo fuliyo bulsho guud ahaan waxaynu isla qiraynaa inaynu ka dambayno dhigeena iyo dariskeenaba kuwaasi waa carqabadaha aan indhaha la iska saabi karin ee ka jira dalkan aynu maanta u dhaaranay ee uu hadda ina lahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ilaahay xilka haynagu asturo haddaba xaaladaha ku hareeraysan dalkeena iyo dadkeena ma aha carqabada oo kaliya waxa jira fursado iyo dadaallo kala duwan oo ka socda heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxa jira dadaallo iyo fursado ay abuurayaan baac mushtarigu culimada iyo hay'adaha aan dawliga ahayn haddaynu qaar dul istaagno waxaad ogsoontihiin walaalayaal barnaamijkii deyn cafinta oo dadaal fara badan la geliyay iyo juhdi fara badan inuu iridaha u furi karo dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka inkastoo arrimihii doorashooyinka iyo siyaasaddu ay halis gelisay walaalayaal waxaad ogsoontihiin oo mar walba aynu aragnaa in heer federaalna dib u habayn lagu sameeyo hay'adaha amniga ee dawliga maamul goboleedyadana ay dadaalo noocaas ka socdaan dabcan sanadba sanadka ka dambeeya adeegga dawladdu heerkay doonto ha joogta ay bulshada u fulisaa wuu soo korayaa balse korniimahaasi waa mid kooban oo aan aad u hana qaadin waxaad ogsoontihiin aag walba oo dawladnimada waxbarasho caafimaad adeeg in dadaal ay ka jiraan hase yeeshee waxba dabraya mudanayaal marweyn senatarada sharfane halkan maanta ku sugan waxaynu ognahay
oo aynu isla qiraynaa aragtideedu aniga ay tahay dadaal walba oo la wado oo dalkan la rabo in loogu adeega hal shay buu marti u yahay wuxuu marti u yahay oo u dabran yahay in la helo siyaasad sharciyad ku dhisan salku u dhigan yahay la isla ogol yahay la aqbalsan yahay oo laga wada shaqeynaya oo hal dhinac aanu rarayn waxa markaa aniga doodayda aan udub dhaxaad uga dhigaya aragtida oranaysa carqabadii 30 sano ee u dambeysay aynu la baxadegaynay iyo ka horba dadka qaar waxay aaminsan yihiin mushkiladu inay ka horba jirtay mar walba waxa la filayay Soomaaliya inay noqoto dal dimuqraadiya oo dastuuriya oo federaalna ah oo dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagoo qud ah iyo iyagoo qayb ka ah qaybaha aynu isu kala qaybino ay ku niyadsan yihiin inay qaranka dugsadaan haddaan hoos u daadego waxaan aaminsanahay Soomaalidu uma kala qaybsana umana kala foga sida qoomiyadaha kale ee qaramada wadaaga ay u kala qaybsan yihiin xaq diimeedna kuma kala qaybsanin xaq deegaanna kuma kala qaybsanin balse waxay isku maandhaafeen cilaaqaadkii muwaadinku uu qaranka la lahaan lahaa arrintaa afka Frenchiga waxa la yiraahdaa state society relations haddii bulshada iyo qarankeedu aanay si caafimaad qabta isula falgelayn in horumar la sameeyo way aragtahay waxaan qabaa markaa in la helo siyaasad sharciyad iyo aragti wadaag iyo dood wadaag ku dhigsan baa waxay ka wacan tahay in hab qalalaase iyo iscaburin iyo ismuquunina horaa la isugu dayay waana socon weyday walaalayaal aragtiyaha kala duwan ee mandaqada ka jira ee siyaasiyiin hadday noqoto iyo dadka kala duwan ee ku aloosan arrimaha qaradhiska Soomaaliyeed aragtiyaha halista ee ka jira waxa ka mid ah kuwa nabadiidka oo intay diintii si kale u turjumeen yiri dalkii holac baanu qabadsiinaynayo markaas uu caafimaadaya dhibaatada aynu ka dhaxalnina maanta waynu aragnaa waxa jira aragti kale oo siyaasiyiinta qaar ay aaminsan yihiin oo loogu yeeri karo ultranationalist ama wadaniyiinta xaq jirta ah kuwaas waxay aaminsan yihiin inay Soomaaliyada hadda aynu ka warranay ee dhibaatooyinka ka jira 5 jirkuna uu og yahay 50 jirkuna og yahay inay yiraahdaan Soomaaliya kaamil weeye way hagaagsan tahay wax waliba waa taam ee cadow dibadda uun laga ilaaliyo inaga isku wada maqan oo siyaasadeennii ay salka dhigi laadahay balse waxaan qirsanahay oo ina muuqata inteena halkan fadhida inaynu u badannahay in u bisil oo xogogaal u ah oo u soo joogtay haddii aan la helin siyaasad la isla ogol yahay iyo qaran la wada leeyahay oo la wada hadhsado inaan haba yaraato wax horumar la samaynayn mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa hadda inaan dul istaago sababta aan u malaynayo inaan ku habboonahay inaan hogaamiyo aqalkan sare anigoo aaminsan aqalkan sare inuu yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee looga martigahay inay xulul u helaan mushkiladii aynu sheegnay waa inaynu ka guurno dhaqanka oranaya madaxweynaha la dooranaya oo isaga dalka oo dhan maanshaynaya oo hagaajinaya ama xukuumad ba qabanaysa mas'uuliyadda saaran xukuumadda ayaa labada gole ee sharci dejintana saaran marka xulusha guud ahaan baa marti leeynoga yahay walaalayaal anigu waxbarashadeedii hore culumta siyaasaddan ku soo takhasusay khaasatan qaybaha dimuqraadiyiinta iyo daldhiska xaq shaqo lama aan soo shaqayn hay'adaha caalamiga ah iyo cilmi baadhista waxaan dhowr iyo 10 sano hadda ka shaqaynayay doorar kala duwan arrimihii hadda aynu xusnay ee inclusive politics ee siyaasadda loo dhan yahay ayaan doorar kala duwan ka soo shaqaynayay ama aan biliiska Soomaaliyeed ka shaqeeyo oo halka aanu ka baaran degno sidee loo helaa biliis dhowr heera oo bulshada u adeega waxaan la yiraahdo federal policing model ama aan soo joogo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka shaqaynayay sharciyada xasaasiga ah ee doorashooyinka la xiriira sharciga xisbiyada ka doorashada iyo amuraha waxa la halmaala ama aan qayb ka ahaado howlwadeennadii wasaaradda oo markaa ka shaqaynayay iyo galeelidii maamulada intii dhinayd
oo ama cadaado aan ka soo shaqeeyo ama hirshabeelle iyo koonfur galbeed markii la aasaasiyey waxaan uga gol leeyahay 2015-16 waxaan garwadeen ka ahaa guddi ka kooban 25 wasiiro heer federaal iyo maamul goboleedaba ah oo farsamo oo hogaaminaysay hanaankii doorasho beriga la isku doortay sida aad ogsoontihiin kuwan dambana gudiyadii doorashooyinka dhuuso mareeb 1 2 iyo 3 ilaa iyo baydhaba chairman baan ka ahaa wasiirka dastuurka wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda shaqada inta aan ka shaqeynayay waxaan si dhow ula socday oo u arkayay carqabadaha siyaasiga ee hortaagan qaran dhiska waxay taasi iga dhaxal siisay inaan helo xirfado muhiim u ah hogaaminta siyaasadeed khaasatan aqalkan oo kale xirfadahaas oo ay nafarayaan dhaqanka wanaagsan ee dawladnimadu in go'aamada lagu gaadho si wadar ogola in xulusha iyo waxa markaa laga shaqeynayo looga shaqeeyo si mediation iyo ay ku dhisan in mataqaanay wixii laga wada xaajoodo walaalayaal khibradaydaas iyo way aragnimadaas waxay ii saamaxaysaa in haddii uu ilaahay ii garto idina aad ii codaysaan aynu si wada jira uga shaqeyno arrimaha in hor yaalla waxaan rabaa marka haatan taariikhdayda markaan inta yar idinka warramo inaan dul istaago doorka aqalkan uu qaadan karo aqalkani waa aqal ka dambeeyey golaha shacabka waase aqal door cayiman oo ballaaran uu dastuurku siiyey wuu u dhigmaa ee kama hooseeyo hay'adda kale sharci dejinta ee baarlamaanka la isku yiraahdo golaha shacabka waa dhardhaar ka mid ah waxa u gaaray inuu gobolada metelo marka aad barbar dhigto sanatarada adduunka ka jira sanadka ama aqalka sare adduunka ka jira waxaad moodaa aqalkani inuu ka yari duwan yahay kuwa kale waxaad moodaa doorkii la rabay inuu qaato in xoogay mugdiyo ku jiro ama cilaaqaadkii uu la lahaa golaha shacabka iyo hay'adaha kale dawliga waxa yar muuqata inay u xareeyeen dabcan waxa la oran karaa waa inta uu ka dambeeyay iyo intii uu ku jiray in la dhiso haddii aan dhowr misaal idin la wadaago Mareykanka budgetka miisaaniyadda iyo magcaabista ambaasadarada iyo saraakiisha silsile qarankaba sanadku uu hogaamiyaa Ethiopia deriska aynu nahay sanadkeedu ama aqalkeeda sare wuxuu mas'uul u yahay arrimaha la yiraahdo fiscal federalism ama khayraad wadaagga isaga ayaa u qaybiya khayraadka gobolada oo marka arrimahan awood qaybsiga ayaa la xidhiidha Ethiopia iyo Nigeria iyo South Africa dalka Afrikaba ku yaala door weyn buu ka qaataa walaalayaal waxaynu ogsoonahay in dastuurku uu awoodda siiyay laakiin xoogay dib u dhac uu ku jiro doorkii uu aqalkani qaadan lahaa waxaan idin ballan qaadayaa haddii aad doorataan ilaahayna uu halkaa ii calfo in aynu xaqiijin doono inagoo wada jirna muujina doono doorka uu aqalkani qaadan karo walaalayaal waxaynu ognahay gudiyada baarlamaaniga adduunka ka jira hay'adaha baarlamaaniga aqalkani matalaad buuxda kama helo shaqaalaha rayidka ee aqalka hadda ka shaqeeya weli ma ay noqon shaqaale rayid oo buuxa oo qayb ka ah shaqaalaha rayidka hawlaha soo dhamay wax ka qabad bay u baahan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado aqalkan sare hawlaha guud ee dib u dhiska qaranka halkee buu qayb ka qaadan karaa waxaan aaminsanahay wuxuu qayb lixaad ka qaadan karaa saddexda arrimood ee soo socda wuxuu hormood ka noqon karaa arrimaha federaaleynta article 54 iyo 44 iyo khayraad wadaagga aqalkan ayaa hormood ka noqon kara wuxuu kale hormood ka noqon karaa arrimaha dimuqraadiyeynta iyo matalaadda wuxuu isna hormood ka noqon karaa dib u eegista dastuurka waa saddex arrimood oo isku xidhan oo isku dhafan oo dhammaantood anigu aan si toos uga soo shaqeeyay inihii aan joogay hay'adaha kala duwan haddii aqalkan aanu hormood u noqon suurtagal noqon mayso in madaxweyne ama xukuumad markaa joogto kaliya lagu daayo waxaan qabaa dib u eegistii dastuurka iyo federaaleyntiiba weli waxay u dabran yihiin tobaneeyo qodob oo aad ogsoon tihiin in yarna aan idin dul mari doono
waxaa ka mid ah in meel la dhigo maqaamkii magaalada muqdisho waxaa ka mid ah in hannaan soomaalidu ay isku doorato oo aan xabada la isu guran la helo oo la isla meel dhigo waxaa ka mid ah in khayraad wadaaggii la saxo waxaa ka mid ah in awood qaybsiga iyo waajibaadka kala duwan ee heerarka kala duwan ee maamulada iyo dowladda federaalka la isla meel dhigo doodaasi meesha ugu munaasabsan ee ugu madaxa bannaan ee matalaad sugan lagu haystaa ee laga fulin karaa waa madashan aqalkan sare wuxuu noqon karaa aqal hal abuur leh oo hormuud ka noqda qaran dhiska iyo siyaasadda Soomaaliya waxaan ku rajo weynahay 4 sano soo socota inaynu wax weyn ka bedelno dowladnimada Soomaaliyeed khaasatan sharciyada iyo asaaska dowladnimada marka la helo sharciyad iyo siyaasad la isla ogol yahay baa laga shaqayn karaa waxyaabaha farsamada ah sida caafimaadka waxbarashada iyo biyo dhaaminta waxaan ku rajo weynahay haddii hoggaan hagaagsan iyo hal abuurka dhammaanteen inagu jir aynu isla helno inuu aqalkani hana qaadi karo dadka Soomaaliyeedna u adeegi karo waa mahadsantiin dhammaantiin